السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa ayaan maxamed faarax. maanta halkaan waxaan facebookayga live aan uga soo galay waxyaalo aad iga naxdiyay maanta ilaa shalay facebook la dhex waday nin caruurteena gatay sheekh agteeda sharafka lahaa musawirkiisa intuu soo qaaday facebook soo dhexgeliyay dad badan aad u fara badan ay ka falceliyeen oo ay aad uga xumaadeen. waa wax laga xumaado. marka bal walaalayaal Soomaalidan waxaan rabaa in bal inaan bal weydiiyo bal nabarka nagu taagan nalagu sii gilgilaayo oo la og yahay Soomaalida dhan ay wada og yihiin caruurta naga xixiran oo god intii la geliyay lagu duugay yaa bal walaalayaal bal waxaan rabaa inay igala qayb qaadatiin soo dhawaada qofkii rabo waa soo qabanaya inuu rabo inuu ka hadlo insha Allah. marka walaalayaal magacayga waxa leedahay ayaan maxamed faarax. waxaan ahay hooyada Minnesota deganahay Minneapolis. caruur waxaa laga xiray 2 caruur ah 2015 caruurta aad ay u badnaayeen 7 caruur ayay ahaayeen aniga 2 kamid ah ayaan dhalay maxamed iyo cadnaan. maxamed 30 sano 30 sano ayuu ahaa, cadnaanna 10 sano ayuu ahaa. marka ilaa shalay ilaa maanta baraha bulshada waxaas qabsatay nin caruurteena gatay oo god intuu u qoday ku duugay oo cid ka hadlaysan aysan jirin dhalinyaro badan ka soo falcelisay aabayaashan ee aad u xishoonayaan. marka Soomaaliyeed inay igala qayb qaadatiin aan rabaa soo dhawaada. waa murugo aad u xanuun badan. caruurteena waxay u maleeyeen in dadka aan iloobnay laakiin ma aanan iloobin. Soomaaliyeed noogu soo duceeyo insha Allah. naxdin waaye dhalinyaro aan waxba sameeynin haddana waa u jeedin maanta gobolka Minnesota maanta dhibaatada taagan caruuro yar yar oo ilaa 7 caruur ah la yiri isbitaalkan Helbinka yaalaan 5 wiil iyo 2 gabdhood. marka bal Soomaaliyeed bal dhibaatooyinka iyo amarada haysto ayay ka mid tahay. caruurteen 2015 ayaa la gatay, dad baa gatay, wadaado isku sheegayo. maantana waxaan halkaan u soo galay oo aad iyo aad anooba caloosheeda awalba banaanka ay taalay sheekhaliyada sheekh Tawakal oo masawir nin caruurteena gatay oo community-geena gatay oo dadkeena kala gatay caruurteena xiran uu og yahay inuu picture-kiisa intuu isu soo dhigo inuu soo galiyo Facebook. marka bal walaalayaal dhalinyaroy bal ina ka soo hadashiin ayaan rabaa bal laga falceliyaan u baahana hadda uu ka bixiyaa la yiri laakiin wax bixin waxba ma tarayso. anigu waan ku jiraaya caruurteena xaqeedaan u hadlaaya insha Allah biidnillaahi kariim. qofkii rabo ha soo dhawaado arrintan nagala qayb qaadanaya biidnillaahi kariim. clipkana waxay ku socotaa sheekh Tawakal horta agteeda qiimo badan ayaad ka laheed laakiin waxba barabaleena ma leh. picture-ka ilaa shalay ilaa maanta Facebook la dhex waday aad soo gelisay nabar nagu yaal ayaa nasii gilgilaysaa laakiin subxaan Allah waa wax laga xishoodo, waa wax laga damqado. caruuro yar yar oo la aasay oo god intii loo qodo lagu aasay. subxaan Allah anaga waalidiin ayaan nahay, waan gubanaynaa beerkeena ayaa banaanka yaalo. walaalayaal ilmaheena wax ka hadlayana ma arkaysid, community ka hadlaya ma arkaysid, masaajid ka hadlaya ma arkaysid. caruurteen inta la xirayna inta ruux tirajo ku heshay ama xoolo ku qaadatay ma cadadna ma xisaab. waan iska aamusanahay, waan xishoonnaa, waxaan isnaanaa dadka iska daaya hala hadlina. ilmaheena xaqooda Ilaahay maalin ayuu noo soo birbirinayaa. marka Soomaaliyeed anigu waan yaabanahay, waxaan u yaabanahay bal dadkii wadaadada isku sheegay ayaga maanta isa soo saaray. aniga ma soo bixin, ma caayin, ma cadaabin. maanta asaga biraha bulshada iskeenay ayaga iskeenay. marka ilmaheena xaq inta ka qayb qaadateen ayaga tartiib u soo baxaayo. xanuun baan nahaayo, hooyooyin ayaan nahay, waan dhibaatoonay, safar aad u badan baan marnay, waan dhibtoonay. hooyo 2 caruur laga xiray oo maanta iska aamusan oo dadkana xushmeynayso. Soomaalidana ay xushmad garanayeen, wadaadadeena is xushmad garanayeen ayaa maanta ilmaheena ninkii gatay oo godka galiyay maanta intuu picture-kiisa soo qaato maanta isa soo aqdhiga oo Facebook soo dhexgelinayo oo ilaa xalan aan fiirsanayay oo ka soo aanan hadlin. taas ayaa maanta keentay inaan Facebook aan ka soo hadlo. waana ka hadlaaya ilmahayga xaqoodana waan ka hadlaaya, habeenaan ka hadlaaya, maalinna waan ka hadlaaya. ilmahayga 2015 Soomaalida inta badankooda weyn ogta in badanna ma oga
inta caalamka dacalaheeda ku nool ayaa maanta waxaan rabaa inaan codkayga aan gaarsiiyo codkaygaan rabaa inaan gaarsiiyo caruurtayda 2015 ayaa la xiray magaaladan Minneapolis caruurtayda ku dhasheen ku koreen cunugayga yar wuxuu jiray 19 markii la xiraayay kayga weyn 22 sano ayuu jiray yarkayga weyn Maxamed waxa la siiyay 30 sano 30 sano maxaa loo siiyay madad buu dilay maya dad muuse dilay annaan maxaa 10 sano loo siiyay gardarro loo siiyay dadka adduunka dacladiisa ku noolan way wada ogaayeen ilmaheena dhibaatooyinka lagu haayay community-geena caruurteena gadashada ay gateen ay magac ku wada heleen ay meel ku wada koreen magaalada Minneapolis Minnesota ma fahanteen anagoon beenki qabno baa nabarka wilina lagu sii gilgilayaa Soomaaliya maxaa leeyahay waranka kugu dhaco iyo kan kugu gilgila ka daran kan lagu gilgilaya noogu daran ayagoo walba waxba noo qabaneen community ayagoo Soomaaliya waxba ayna noo qabaneenin wadaad meel noo qabaneenin masaajid waxba noo qabaneenin marka alxamdulillah rabbil alamin alxamdulillah qadarta ilaahay anaga waan qaadanay qadarta ilaahay aan qaadanana inana lagu sii waxeeyo ma ahan marka alxamdulillah aan leeyahay marka maanta waxa isoo galiya sheekhaas liya sheekh tawakkal oo nagama ka qabato waana ogtahay caruurta dhalinyarada xaq darrada lagu xirtay waad ogtahay walaalo waad ogtahay marka ma ahan in aad inta masawir soo qaadatid waqtiga la aamusayo lagu ma jiro waa dhamaata waqtiga la aamusayo waa xishoonay aabayaasha maxay ugu soo jawaabaysaa calooshooda banaanka ay taal caruurooda laga xiray maxaa ugu soo jawaabtay waxa Facebook-aaga ku soo qortay waad ogtahay gadaal ugu noqo sheekh tawakkal anaga seena ugu horta si aniga ugu bilaabata way maalina ma aamusay ilmahayga xaqoodi ilmahayga inta nin ka qayb qaadatay xiritaankoodi inta lacag ku qaadatay halkaasan ka soo sheegayaa Soomaaliya ma naqabataa ilma aan wadankeena aan dagaal uga soo cararnay oon Mareykan la imaanay ilmaheen in la gato jelo lagu aruuriyo oo lacag lagu qaato community-ga lacag ku qaataan sheekhayaashan lacag ku qaataan ma naqabataa Soomaaliya ma naqabataa weli 5 sano kadib picture intii la soo galiyay in picture la soo fariistay nimanka caruurteena cunay oo ay og yihiin in la yiri maxaa la yiraahdaa ay yiraahdeen maxaa la dhahaa wallahi ma hadli karo wallahi ciilaanu hadli karin subhanallah sheekh tawakkal adag kugu socota clipkan aadaan maanta meeshan ku soo fariistay waana say aniga igu bilaabatay xaqa caruurteeda ilaa barnaanka uu soo baxana maalina ma aamusaayo wax badan baa afkana laga qabtay culimada xushmeeya hebel xushmeeya ma jirto wax dambe xushmeeyna ma jirto waalidiinta ku soo qoray waxa u soo qoraysa waad ogtahay ka soo jawaab adaa si degdeg ah ugu soo jawaabaysid hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan rabnaa anaga waalidiinteena inaan iskiin barno insha Allah aniga Facebook-aan maanta live waxay soo galiyay calool xumo awalba aan la jiifay 24 saac la aamusnaa aan salaha iska daa ayaan ka hadlin ayaaba maanta waranka liigu sii waxweexeeyay taas waaye maanta maxaan Facebook aan soo waligay Facebook live kama soo hadlin waligay ilmahayga 5 sano 6 sano hadda u socoto xiritaankoodii marka Soomaaliya ilaahay waxaan ka bariyay ilmaheena xaqooda ilaahay inuu maanta barnaamijka u soo dhigo taasan ilaahay ka bariyay maxaan rabaa inaan noo soo duceysin insha Allah aniga kole continuous ayaan live aan soo galaya insha Allah biidmillah alkareem maalina kama seexanayo ilmahayga xaqooda kama seexanayo xaqa caruurteeda maalin ayuu soo baxaya biidmillah alkareem waa caruuro yaryar oo la gatay been lagu abuurtay xoolo lagu gurtay darajooyin lagu helay inta ruux caruurteeda ka qayb qaadato darajo ku heshay oo Minneapolis maanta taagan oo Minnesota taagan ayaan maanta markaan dadka aan arko oo indhahayga saaro naxdin ayaan u dhintaa caruuray leeyihiin shame on you guys waxaa is leedihiin waalidiintan waa la duuga caruurtoodii waa aamusayaan laakiin ma aamuseeno insha Allah biidmillah alkareem ma aamuseeno sheekh tawakkalo maanta waxa soo galisay ilaa shalay soo galisay jawaabteeda ayaa laga rabaa insha Allah jawaabteeda ayaa laga rabaa degdeg waxaan kaloo halkaan rabaa in aan uga mahad celiyo dhalinyarada yaryar oo ka dhidhisay oo ka hadashay ilaa shalay Facebook wax ugu qoraysay
وسيدان أركي وجهد ليسي أيام حربينا إن رادو هبر يا آدا يا المهد سنتيهين أنا جواردين اسكتبان أيامنا هاي إن شاء الله نبقى معلم بانك وضع بحينا بإذن الله الكريم وحبوا بربلنا ماله بربلنا ماله dadku u maleenaayo in ay maxaa la yiraahdaa caruurteen xaqeeda aan ka aamusaynana kama aamusayno waa sidaan u soo baxay saan ilmahayga xaqooda uga hadlaaya maanta uga hadlaaya maalin kastana uga hadlaaya biidnillaahi alkariim waqtiga la dhahayo hala aamusa ma la joogo khalaas insha allah biidnillaahi alkariim caruurteena banaanka ayay u soo baxayaan noo soo duceeya Soomaaliye wadaadada ku soo hartay wadaadada ku nool magaalada Minneapolis Minnesota ayay ku socotaa wadaadow maxaa noo qabateen male caruurteen xiritaankooda waa ka qayb qaadateen aye marka waa la sheegaya xaqa wixii afka laga qabtaa lifeeraha dilaaco marka ma ka aamusayo xaq ilmahayga maalina kama aamusayo habeena kama aamusayo insha Allah biidnillaahi alkariim ilaahay waxaan ka baryayaa oo markaas ilaahay ka baryaa ilmaha sireero xaqooda la duugay cid ka hadlaysa male cid ilmaha ka hadlaysa male hadda ilmo yareero waxa la dhahayaa drug cunay fiiri cuqubooyinka Soomaalida nagu haysta Mareykanka iyo meel kasta adduunka bal fiiriya Soomaaliyeed 7 ubad ah ayaa waxa la yiri kiniinyaale cunay isbitaalkan Hanibinka yaalaan qaarkood waa dhinteena la yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naxdin waaye waa wax aad u loogaga naxo marka anaga wadaadadii aan ku tiirsaneen oo gobolka Minnesota taagnaa maanta ayagaaba soo saarayba anaguna soo bixin ayagaa soo bixiyay saaninka ilmaheena cunay oo maxaa la yiraahdaa gatay oo godka intuu qolo ku soo duugay oo dadkeena tafaraariq ku kala riday oo waalidiinteena maxaa la yiraahdaa calooshooda banaanka soo dhigay ninka intuu masawirkiisa soo qaatay isa soo ag dhigay yaa wuxuu rabaa ka aamusno xaqa ku soo bixiyay Sheekh Tawakkal xaqa ku soo bixiyay maalina kaama aamusayno habeena kaama aamusayno jawaab degdegaan adaan ka rabaa maanta jawaab degdeg adaan ka rabaa Sheekh Tawakkal waan ogtahay magaalada Minneapolis sida agteeda aad uga heed qiimihiin uu ka dhacay khalaas adaan is soo shacab bixisay inaad la shaqeyn jirtay dawladda inaad FBI-da la shaqeyn jirtay inaad lacag qaadatay ina haddana rabto ilmeen inaad darajo ku soo saaratid ayaa Facebook u soo dhaxgashay laakiin kaama yeelayno inta nin caruurteena ku soo magacooda ku soo baxay oo meel darajo ku heshay 1 maahan 2 maahan 3 maahan 4 maahan sheekhan la yiraahdo Cabdisalaan Aadan boorka wuxuu kamid ahaa masaajid iskuulka la yiraahdo iskuulka magaciisa Al-Amal ayuu wuxuu ka ahaan jiray boor haddana waa la og yahay wuxuu noqday Fridley wuxuu noqday boor ilmaheena ku soo magac baxay waa ninka kaliya oo la yiri ilmaheena jeelasha Minnesota markay degnaay ku jireen waa ninka kaliya oo la yiri waa uu soo booqan karaa darajadaas xaq uu ka helay caruurteena ku helay in maanta ka hadlaysa Cabdisalaan aad ilmuhu haystaa iskuulkan la yiraahdo Heritage ninkii ka shaqeyn jiray Cabdirashiid Aabi Muhammad leena in ayaan ka aamusnaanayso kaama aamusaayay banaanka iskeenaysa masaajidka Abu Bakar boorkiisu ku jiraa ilmaheena ayuu darajo ku helay Cabdirashiid Aabi wuxuu joogaa masaajidka Abu Bakar waxa ku soo harta masaajid inta masaajid ilmaheena ka qayb qaata 1 maahan 2 maahan 3 maahan 4 maahan mana aamusayna mana aamusi doono insha Allah mana aamusi doono mana aamusaayo nolosheed inta igaga dhima ilmahayga xaqood ilaa inta banaanka soo baxay ma aamusaayi marka Soomaaliye intan ilmaheena magacooda heshay Cabdirasaaq Biixi ka joog ayuu ku jiray hadda ayuu wuxuu isku soo sharaxay war 6 haye Cabdirasaaq Biixi adi xitaa clipkan way ku jirtaa Cabdirasaaq Biixi caruurteena ayaad garatay maanta waxaad rabtaa miyaa markay lagu doorto nin dhiig qabo sida lagu dooranayo sida lagu dooranayo caruurteena goday ku jirtaa waxaad tiraahdaa waa liloobayaa never inaan ilooben caruurtayda habeen ilooben maalin ilooben subax ilooben galabna ilooben halkaan aan wada keenaa kulligiin oo afdam waan isoo wada sheegayaa anoona hal qof aan ka tagin inta caruurteeda darajo ku heshay oo meel ku korto oo Minnesota degana kulli waa wada keenaya insha Allah biidnillaahi alkariim hal ayaa magacayaashiin u soo dhigaya waxa wada suubisan oo dhan kuwa ka joogliyada Maxamed Faarax aye 600 kun maxay u celisay Maxamed Faarax maxay u celisay
caruurteenaad gadatay markuu Trump soo kala 600 kun celinay miya maya saaxi ma aamuseeno ilmeyga xaqooda waa u taaganahay maalina u taaganahay habeenaa cid ilaahay mooyaan ka baqanayna ma jirto waa fahanteen soo maahan inta ilmeyga darasho ku heshana waa wada ogtihiin waana ogtihiin haddaad u maleynaysa in anaga aamuseeno maalina ma aamuseeno habeenna ma aamuseeno caruuraha yaryarkaayoo la gadanayo caruuraheeni dhan waa dhammaadeen wax u hadlaayo wax u kacaayo wax ka dhiidhinaya ma jirto afkii baa daboolkana laga saaray waalidiintii oo dhan waa wada dhiban tahay haye waa mid daraag lagu dhameeyey iyo mid xabad lagu dhameeyey mid jeel la seexiyey haye wax ka hadlaaya ma leh damiirkii wuu dhintay damiirkii ayaa dhintay waalidiintii sidii loo dhahayo war iska aamusa ayuu waalidiintii mid kastaba qaracan meel la fadhiyaa sida anigoo kale ma hadlo ilaahay laakiin subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryay ilmaha Soomaalida ilaahay inuu gacanta dhexda usha nooga qabta taasaan ilaahay ka baryaaya ilaahay taasaan ka baryaaya ma aamusayo xaq ilmahayga maalina waa ka hadlaa habeenna waa ka hadlaa subaxna waa ka hadlaya biidnillaahi alkariim waan ka hadlaaya maanta kow iyo Facebook maanta kow weliga Facebook live kama aanan soo galin maanta kow iyo ahaa marka maantana ciilkaas asaga shiiqaas soo bixiyay aniga ma soo bixin xaqaa soo bixiyay xaq caruurteenu ka galay ayaa soo bixiyay Facebook ayuu isu soo dhigay ninka caruurteenu gatay asagoo masawirkiisii isku soo agdhajiyay ya sheekh Tawakkal waa ku qarinayay wax badanna waa ka aamusnaa laakiin maanta kaama aamusayay mar dambe kaama aamusayo banaankan ku keeni xaq darradaas uu bisayna ayaa maanta picture-ka iyo ninka picture-kiisa caruurteenu gatay ilaahay baa keenay aniga ma keenin adaa iskeentay adaa beertaan iskeentay adaa iskaayo tusiyay haye ilaa ya xalay waa arkay Facebook waxa ugu jawaabaysa dadka darajadaas waad gaartay ya darajadaas waad gaartay wallahi ciil baan la hadli karin dadka waxaan haday ciishoodaan aan hadli karin alxamdulillaah iimaankeena qanjuu jooga alxamdulillaah ilaahay wuxuu noo keenay alxamdulillaah waay ilaahay meena xaqeedana soo bixinaayo waxba barbalena male todoba ubadka oo la gatay ilaahay ayaa soo bixinaayo ilaahay ayaa soo saaray caruurteena laakiin wax dambo aan ka aamuseeno iyo wax dambo aan afkeena qabanayna ma jirto waa in dadka la iska celiyaa bin aadankan waa in la iska celiyaa hadda maanta asaga shalna soo doonta shiiqan asaga shalna soo doonta annagoo iska aamusan murugadeena iskala aamusan awalba yaabanaabo on leena warhaade ilmahan maxaa looga hadli laayahay ya ilaa waa ilmo la gatay maxaa looga hadli laayahay anoo yaabanba asagaaba shiiqan badda isku soo tuuray anaga waa kula koobinaynaa hadda inaa ka saartidba ma bahanbo hadda waad ka saartay maxaad uga saaree waay uga saaree already waa la arkay meel kasta lagu taageeray qof kasta arkay ya marka jigama raadinaysa anaga lacag ku aruurinayna magaalada wallahi anaga ilmaha dadka dhibaataysan anaga lacag u aruurinayno inta lacag dawladda ka qaadatayna lacagaha way celinayaan ha u maleynina lacagaha qaadateen in liigaga daba haraayo iyo xaq darrada asuubiseen in liigaga daba haraayo ha u maleynina caruurtii Soomaaliyeed waa dhamaatay ceelno ma qodna dadna uma maqna cid u maqan mal ilmihii Soomaaliyeed ilaahay qabaan hooyooyinka iyo aabayaasha gablamay oo dhibaatooda ilaahay qabaan mid daraag lagu aamusiyay haddana waxaaba soo baxay kaniiniyaal wax ka hadlaayeen aysan jirin hal community hal nin oo meel intay soo istaagaan ka hadlaaya male because dadkii oo dhan ruuc baa lagu riday cabsi qofka soo cabsana maxaa laga baqay waaba yaababa aniga waaba yaabaye maxaa laga baqayaa Soomaaliyeed maxaa laga baqayaa caruurteena 2015kii markii la xiray ilaa inta ka dambeysay waxaana lagu hayay war aamusa iska aamusa war waxa sheegina iska aamusa waan ili duceynaayay haye ducada maalin ayaa noo kacdaysa insha Allah xaq ilmeena baalanka maalin ayuu u soo baxaya wallahi maanta Facebook ma rabin laakiin shiiqaas ayaa igu qalifay inaan maanta Facebook soo fariisto because always markii waranka lagu gilgilo wax ka xanuun badan ma lahan waqti ayuu maanta taabanayaan damiir la'aan Soomaalida damiir marna ma qabaan damiirka ayaa dhintay damiirka waalidiinta waa dhintay ya wallahi ya buway imtixaan adduunka ilaahay subhanallah Facebook iyo wuxuu soo galiyay picture nin caruurteeni gatay ayuu soo galiyay markaas community dadku u qoraayeen qofka soo celilay uu la shaqeynay ana hada intu ku keenayo hadda la shaqeynaysa hadii kala wax iga galay malahan ittaqullah ilaahay ka baq
إلهي كونت كبق انت اللي حساب نس حسابي شيخ توكل هذا كوجو جيدا يا المين صدني شو سنه لا صار maxaa loo saaray no reason laan wallahi subhanallah wax laga xumaado waay wax aad looga xumaado waay wallahi subhanallah hooyooyinka dhibaatooyinka ay marayaan oo laga hadli karin oo la sheegi karin community wax qabanayaan ee sijin community shayga lacagta ku daldashabo ilmaha lacagta ugu badan community-ga ilmaha maalinta la xixiraaya ka soo gasho waa la ogyahay taas waa wax qoran waa waxaan iska dhahayo xitaa maahan waxaan iska dhahayo maahan subhanallah waa wax laga xishoodo waa wax laga qiiroodo wallahi waarid ka aamusan waaridiiniga aamusan ayaa waxa gilgilaysiin boogta ayaa maantana taataabanaysiin oo banaanka soo dhigaysiin calan xuma walba ku jiifnay labadeeda carruur xaga laga kala tuuray annaa waxa la geeyay New York dabadeeda la geeyay Brisbane magaalo liireeda la geeyay maxamedna Arkansas laga tuuray haye hooyo iyo waarid iyo aabbo aan ilmahooda arki karin markaas maanta ninka ilmaheena gatay picture-kiisi meesha soo dhiganaysaa dameer xumadaada aad u dameer xuntaniyo aad u dameer xuntaa laakiin ani ma aamusaayo wallahi say ugu bilaabatay waa inta muuqayga magacayga taqaana way taqaanaa wallahi inaan maalin aamusaynin sheekh tawakkal aday maanta hooshan ku taala hooshan aday ku talaadana soo raasatay anagu kuma aan soo raadsanine aday maanta ku taala sida uga soo bixbixaysa aday ku taala Andrew Lugan no more martamba maahan Andrew Lugan maxaa la yiraahdaa Minnesota maahan martamba waxba maahan uu ka dhagacay jigadi khalaas nin kala maanta haysto ya marka ina shaatiga qamiisyaashana noogu qaraabatiin anagana na baabiisiin xaq ilaahay miya xaq ilaahay maahan ina shaarika ku qaraabatiin diinta shaarikeeda ha ku qaraabanina ilaahayna uu ka cabsada ilaahayna uu ka baqa xoolo xaaraanad gurateen waxa la leeyahay war maxaa dhacay Minnesota u baabaysa caruurti kooras maxuu baabii weysa lacag in ma xaaraan lagu daldashay waaye ya jugooyna ilmeen ku wada koreen haye cid ka hadlaysa ma jirto cid ka hadlaysa male laba qof oo meelta ku soo fadhiisata caruurteena sirarka ka hadlayso male marka waxay u maleynayaan ilmeen inay iloobeeno laakiin ma iloobeeno ilmeena insha Allah ilaahay la jiro marka sana meel ka sana adduunka wayna looga soo duceeyaa ilmeena ducee qabaan diin islaamna ilmeena lagu xirto qoladaan ogeynay ilmeena diin islaamna lagu xirto ogaada nimankan qamiisyaasha noo soo gashtay oo maanta picture nin long time ago maxaa waanta waxa raadinaysa maxay ahayd waxa maanta raadinaysa oo picture-ka ninka u soo dhigatay maxay ahayd ii sheeg maxay ahayd shiiqo maxay ahayd ala maanta kula hadlaayay maxay ahayd waana daawan doontaaye sababta aninka picture-kiisa long time ko 6 sano ay ka soo wareegatay maanta picture-kiisa Facebook ala soo fariisatay inta isku soo sawirtaa meesha soo dhigtay maxaa ka wada sheekh tawakkalo maxaa ka wada ya annaga awal baqaracsaneen caloosheena banaanka taale oo hin har iyo habeen ooyayne ya maxaa boogtaan u taa u soo farfarto hadana noogu sii xunxunaysa boogta ya subhanallah shame and you aniga leeyahay wadaadada kuwa isku sheegayo shame and you ilaahayna unta ka baqa dhamaanay caruurteena Soomaalida waa dhamaatay waa baabaaday ilaahay yaa u maqan caruurta Soomaalida ilaahay yaa u maqan wiil iyo gabarba ilaahay yaa u maqan inta joogtana waxa lagu dhameenayaa daawooyin hadana medication aba soo baxayba sun loogu daraayo wax ka hadlay ma arkaysid kuwii la duugay oo jeelasha ka buuxa cid ka hadlay ma arkaysid waa calool xumo waaye wallahi walaalayaal sii sheer gareeya meel kasta ku taagereeya sheekh Khaliil sheekh tawakkal naga soo garbax magta caruurteena waa laga rabaa horta koow adiga magta caruurteena laga rabaa kulligiin inta wadaad Minnesota joogto ka qayb qaata caruurtayda kulligiin magti laga rabaa caruurta 7 caruur ay ahaayeen magtiyaana laga rabaa magti waa inaa soo bixisaan 7 wiil 100koodani laga rabaa magti ayaani laga rabaa magtina soo bixiseen sheekh tawakkalo adaa iskanta xeebte anaga kuma aan soo doonan anaga waxba waligeen yaaleen ka maana sheegin laakiin adaa maanta isa soo ka shiftay very sad waa wax laga xumaado waaye wallahi wax laga xumaado waaye ya 24 saac waxaan leeyahay wadaadada ayagaaba iska wadaadada xagee ka dhibayin asaga ninkan banaanka iskeeneen magta caruurteena laga rabaa maanta aniga sida igu bilaabatay waa Facebook
مقطع عرورتي هرت عناني محمد عبد الرحمن قوليد سكرية حنط حمزة تدبدي ويل آد قدتين مقطود يعني لقربا انت من صوت تشوكت مقطع عرورتا لقربا مقطود يا الربا أنا ما أنت واحد صفر إيجا سهل لسيسي مقطع عرورتي دي الربا رادين يا سكول كلا جاي ان امريكان تاكس فورس لجاي ويس يقاناني او هيرتج لدهاي عبد الرشيد ابيو عروتيدا مقتوديا لغا ربا ميشا تقول لي هذا الربا من صوتو مقطع عروتيدا لغا ربا مقطع عروتيدا waa 30 sano iyo 35 sano wax badan waay maqta caruurteeda laga rabaa maqta caruurteeda laga rabaa maqta caruurteeda laga rabaa Soomaaliya sheer gareeya ninkan waxa ku soo artay Cabdirasaaq Biixi la leeyahay Cabdirasaaq Biixi walaalkay مقطع عروتي ذا لقى ربا هذه أنا ورتيك سود قال لكن مقطع عروتي ذا أنا أباهنا هاي عروتي ذا أتقلت وجودك كدوبتي أيام أباهنا هاي مانتا مقطع ذا أيام أباهنا هاي هذه أنا ورتيك سود كوسو شرح حسا عروتي ذا العقد تقول قالت عروتي ذا السينة سينا نولاتي ذا بتبدي ذا رقمي هذه يا أنت نين عبد السلام آذن هل كان عبد السلام آذن إنك اللي يراهدو مقطع عروتي ذا كان ربا مقطع عروتي ذا أباهنا هاي مقطع عروتي عنان يا محمد ماشي اللي قدو جوات قانيني مقطع يعني باهنا هاي مالنا ما آموساي هبينا ما آموساي إذا كان بناك إسكو صوصاتين شيء قال يا شيء توكلوا أذا بناك إسكو صوصات أنا ما أتوكم صوبحين أذا ما تصوبحي صاي Soomaali oo dhan way ogeed inti ruux xalay iyo shalay ku soo jawaabaysa waad ogeed ma soo hadlin marna ma soo hadlin laakiin maanta kooye magta caruurteeda laga rabaa inta wadaad ka qayb qaadata iyo inta nin Soomaali ka qayb qaadata caruurtooda magtoodiyaan rabaa Soomaaliya magta caruurteeda rabaa ya magta caruurteeda rabaa 30 sano 35 sano Soomaaliya Ilaahay nagu dhaari caruuro yar oo lagu duugay lacagta caruurtaas laga qaatayna caruurahooda ay siinayaan بعد ما حنا ما أنا أفكر شروطنا لقى عصار ولا لا مسيال الرباع إنه ما يروح حق ترى لو حي حرتي يا 2015 كي قلك سوا قرنا سعرورتنا ولا أنا داون المجرتو واسكا عامسنا مركز صباح أنا إلها حق ذي الماء شيء قال أسجع ما أنت سو صاري أسجع ما أنت سو صاري أنا جم سو صاري ميلو شو جم آدي ولا جاي ميلو دقين حتى ما أنا أقولين أسجع برناك إسكو سو صاري شيخ توكلوا ilmeena xoolahaad ku qaadatay maanta magti laga rabaa maanta magti adiga laga rabaa leey maanta kugu soo forartaa ma fahantay shiiqiyaasha oo dhan all Minnesota dadka joogo oo ilmeena ka qayb qaatay ayaga is yaqaano ilmeyga magtooda u baahanahay ilmeena la duugay ilmayaasha Minnesota lagu dhameeyay 6 sano hadda ka soo ka martay 30 sano sababta 30 sano loo xiray waa maxay واي 30 سنة الله حرق سببت 30 سنة الله حرق وامحي سببت الله حرق وامحي سببت الله حرق وامحي محال الله حرق المهيقة سبب شيخو أنا ما تكون مبين هيسن 6 سنة واسكا عامسنا هذا ما أنت بيكتر إيسوك الشيء أو بيكتر إيسوك كيسو على فيسبوك سمعهن ما أنت هذا كوهي سطا عد أنك عامسين متشفتو المهيقة حقودنا habeen iyo har iyo maalin waa u taaganahay waligayna waa u taagnaanaya intay banaanka ilmeygaas ay ka soo baxayaan ma fahanteen caruurteena waa la gatay dadkii gatayna reer Minnesota way is og yihiin dadkii gatay way yaqaanaan ma fahanteen subhanallah allah maxaa hooyo dhaaxa dhibaato ku sugan Minnesota oo iska aamusan oo silent ah laakiin no never اوكي قولada rabta inaan soo qabto yaa waayo okay yaa waayo